هذا الدية كعفيان وحكرة تمها يا وحاوية ودية اللي يرهد الدية المقلدة باكرة تمها يسا ووحي تاي دية داسو صدن شنشر وقال معه جيلة iyo 34 jir iyo 40 uurey boqol kaas ka ratimaya سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أن خياري والله حلي والله سوعدي أن قربدي لو يمد أنا والله الشيء ونضعي شركة معدم كيسي بيشينا way qaadatay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa la qaatay waa sharciga islaamka wax nooga wanaagsan oo aan yeeli lahayna ma leh waxaan kaliya oo rabaa in aan anigu ka hadlo waxa la akhriyay culumaduna ay ka wacdiyeysay meeshaan hadda laga akhriyay waraaqaha la akhriyay waxaan rabnaa inaan cadeyno oo sheegno inaysan ahayn oo hadda qolobada laga akhriyay wax ra'yi ah inaysan ku jirin waxaan kala cadeynaynaa inaan keeni doono hadii alla idmo shay kasta adiladii uu lahaa oo kor saaran oo aayad quraana iyo xadiiskiina waa keenayna waa soo kor saarayna laakiin ayagii oo la soo qoray oo qoraal ahaan af Soomaali u ah mid kastaana ka turjumaysa xugum sharci ah ba meesha la soo kulligood la soo wada dhigay saas inay yihiin bal cadeynayna ayna hordhac ahaayeen laakiin ayaga oo mid kasta adiladeedii wadata baan keeni doonaa hadii Ilaahay yiraahdo haddaan xogaa kor istaagno qodobada waad maqlayseen Ilaahay ayaa maaragtay inoo cadeynaya ya ayyuhalladina aamanu kutiba alaykum قصاص بولية وحنا إن كفر اليالني ذاتك الله يا رسول كرميو قصاص وحنا أهريي إن قضبض هذا قصاص يا أهريسي وفي القصاص الحياة يا أولي الألباب والأهلية نلول بانا إذن كوكوشي داين هذا قصاصتان مركا ومغليسين وشيد الله الشيقي وحالا يرغفك كس وحأدي له qaata sida qaalibka wax dila sida qoriga iyo tooreyda iyo seefta iyo qaata waxana ku dila oo una qaata qofka inuu ku dilo qofkuna saa uu ku dhinto qofkaas waa la soo dhaweyn oo waa la soo qaban waxaana loo dhiibayaa baa leeyahay qofka iska lahaa qisaaskiisa oo dadkii waliyo damka baa loo dhiibi ayaga si sharciyana markaas waxay tahay saddex qodob oo u banaan midkay doortaan inay ku fuliyaan inay qisaasaan oo dilaan waa u banaantaa si sharciyana u dilaan sida sharciga ayagoo doortay qisaas ayaa qisaaska waqti la fulin karaa oo misaal ahaan waxa weeye qofkii haduuba hadda nin ahaa waxa laga yaabaa dadkii qisaaskiisa iska lahaa oo dhaxalka iska lahaa ninkii qofkii dhintay waxa laga yaabaa in qaarkood saqiir yahay markaas inay wada qaataan in hal mar ay kulligood wada qaataan ayaga oo qaangaar yiraahdaan hana loo dilo maahana iska qisaasmi maayo hadii qayb kamidu ay yiraahdaan anagu diyaan rabnaana haba yaraadeen oo hal qofna ha ahaadeene intii kale ayaga ka qaalib noqonaya oo qisaastii waa laga furan oo diyadaasi u wareegaya si kastaba ha ahaatee qofkaas haday qisaaska la doorto marka sharciga la waafajiyo la qisaasi oo maxkamad la saaro xaakim horti la geeyo marka sidaas maaragtay loo soo bujiyo saas lagu qisaasaya haday iska cafiyaan oo ay ku bedeshaan doorkii kale haday ku bedeshaan oo ahaa diyada haday ku bedeshaan waa u banaantaa ama ayba iska cafiyaan intuba waa u banaantaa haday iska cafiyaan oo bilaadiye ay ku cafiyaan waa wax u banaan weey haday diye ku cafiyaan waxa ka ratimaya waxa weeye waa diye la yiraahdo diyatul muqallada ba ka ratimaysa oo waxay tahay diyadaasu 35 jir oo qaalma ah oo geel ah iyo 34 jir
iyo 40 uurey boqolkaas ka ratimaya waxaana lagu leeyahay oo qofkaas iska cafiyo qofka uu ku yeelanayaa waxay tahay isla qofka laftigiisa la cafiyay qofkii cafiyayna ayadu asagu ku yeelanaya cid kale lagu leeyahay ma jiro inta waraaqaha ku soo qoran waa saas weeye waana sida sharciga islaamka ah adiladiisana waraaqaha lagu soo cadeyn doona hadii Ilaahay yiraahdo marka dilka kaska saas ayuu ahaa